Peace and blessing of Allah be upon you. After greeting, I'm your brother Dr. Dasis, and today I'm gonna to teach you a lesson which is about computer. In this video, I will teach you how to create user accounts using CMD, or how to add a new user to your Windows computer by using command promote. Keep in mind that you must have administrator privileges to do this, as standard user accounts cannot create new user accounts. You cannot use command promote to create a Microsoft account. If you want to create a new user account by using CMD, you must run the CMD as administrator, and at that time you will be able to create a new user account by using CMD. But if you not run your CMD as administrator, the CMD, after when you enter the details, it will probably say to you access is denied, and the access is denied is a sign that you have run your CMD without administrator. And in this video I will teach you how to create or how to add a new user to your Windows computer by using CMD. Follow these steps that I'm gonna to teach you. Let us come back to our lesson. Also, there are so many ways that you can create user accounts by using somewhere in this computer, and I will teach you all of them with step by step. And let me start the first lesson, which is concerned about how to create user accounts using CMD. Markaad rabto in aad ku samaysato command promote user account, waa in aad marka hore aad ku soo kacsataa as administrator. Markaas si awood waad u leedahay in aad ku furato new user accounts command promote-ka. Haddii aadan ku soo furanin CMD as administrator, hadhowda CMD markaad geliso information-ka oo ku saabsan user account-ga, markaad ku dhamaystirto aad dhahdo inta, hadhowda wuxuu ku leeyahay access is denied. Sababtu ku leeyahay waa maxay? Waayo CMD kuma soo kacsanin as administrator. Cashirkana maanta wuxuu ku salaysan yahay oo kaliya sida loo abuuro akoontiyo cusub adigoo ku samaysanayo command promote or CMD, iyo qaawooyin kale ayaa jirta oo lagu samaysan karo. Qaawooyinkaasna waan ku arki doonaa in this video. Marka isku day in aad u raacdo cashirkani with step by step. Marka koowaad inta aadan core command promote, marka hore maxaa laga baahan inaad adiga samayso Roman number 1 open start button. sawirkan kaaga muuqdo meeshani waxa la yiraahdaa start button. aniga hadda sawir ahaan oo kala meesha soo gashtay, sawirka waa aan ka qaadi karaa, magaciisa waa aan gelin karaa. Okay, sida ay tahay marka hore inaad furtaa start button markaad furto, marka hore cashirka ayaan sharxaadaya, kadib waxaan isku dayayaa cashirkani naftirkiisa in aan idinka bixiyo practical. isku day marka inaad fahanto cashirkani easily si fudud. Open start button, marka hore waa inaad furtaa start button adigoo ku furanayo Windows logo in the bottom left corner of the screen. dhanka bidix screen-ka dhinaca oo Windows-ka wuxuu ku yeelaa start button the left corner of the screen oo ah dhankan. start button meeshan la yiraahdaa oo kor saaran pointer mouse or cursor. start button waa halkan oo koobintan guduud oo ku jirta. Okay, lambarka rabaadne oo Roman number 2 wax weeyaan, markii aad start button aad furato waa in aad aadaa dhanka la yiraahdo search bar.
Roman number 2 search for command promote markaad rabto inaad command promote aad raadiso waa inaad tagtaa search bar markii aad tagto waa inaad qortaa command promote to do so sawirkan meeshan kaaga muuqato wuxuu ku cadeynayaa qaabka markii la aado marka hore start button search bar ayaad ka dooranaysaa search bar markaad ku dhufato waxaad qoraysaa command promote markii aad qorato hadhowdi meeshan ayuu ku keeni doonaa like the way you see here Roman number 3 markii aad ku qorato search bar command promote waxa ayaa ku soo kacayo command promote markuu kaaga soo baxo dhanka start menuga command promote waa in aad ku kordhahdaa right click markii aad dhahdo command promote it should be at the top of the start windows wuxuu ka soo muuqanaya dhanka sare oo start windowska oo kaga muuqan shaashada dalalkan markii oo kaaga soo baxo command promote as an image waa in aad ku kordhahdaa right click it promotes markii aad dhahdo right click it promotes a drop down menu wuxuu soo saarayaa a drop down menu marka uu ku soo saaro waa in aad dhahdaa click run as administrator this is the drop down menu waxa la yiraahdaa midkan markii oo ku soo baxo command promote waa in aad ku kordhahdaa command promote kaas as right click left click hadaad dhahdo hadhowda caadi oo isfurayo marka looma baahna inaad dhahdo left click or double click waa inaad dhahdaa right click markii aad ku dhufato command promote-ka waa in aad ka doorataa run as administrator markii aad ka doorato run as administrator marka xiga click yes waayo hadhowdi marka run as administrator marka dhahdo wuxuu ku soo saari doonaa user account control do you want to allow this app to make changes to your device waayo sababtu ilaahay tahay sidan waayo computerka wuxuu ayuu leeyahay laba account waa mid account waa user midka kalena waa administrator marka userhani waxa xukuma administrator hadduu oo computerkaada uusan lahayn administrator hadhowdi kuma dhihi doono qaabkan waxa ayuu ku leeyahay oo kaliya hore u sooco marka haddii uu leeyahay computerkaada administrator wuxuu kugu khasbayaa inaad dhahdo no or yes sidoo kale marmar qaar waxaa jirta doo administrator uu password oo ku dhahayo geli password kale kadib oo ayuu ku furaya marka Roman number 5 click yes waa inaad ku dhufataa yes markaad ku fato when promoted markaad sar u qaado doing waxa ayuu sameynayaa so opens asigoo furayo the command promote window ayuu furaya kadib intaan hadda oo soo sheegay aan sameeyna hadda marka koowaad waxaan dhahay start bottom ayaan aadana markii aan aadno waxaan leenahay click marka aan ku dhufano waxa ayaan soo baxay start menu marka oo soo baxo waxaan ka dooranaynaa search bar markii aan ku dhufano waxaan qornaynaa command promote xaga ayuu kaaga soo saarmaya ama dikla wada dhameystiri kartaa command promote marka qorto waxa leedahay right click marka aad ku dhufato waxa ku soo baxay run as administrator tan waxa loo yaqaanaa drop down menu run as administrator ayaad ka dooranaysaa marka aad click dhahdo run as administrator waxa uu ku leeyahay sida tan had meesha noogu soo saarayo waan suganaa cabar ilaa oo naga weydiiso kurad aniga kaga administrator waxa ku xiran kurad hada wuxuu leeyahay do you want to allow this app to make changes to your PC aniga waxaan leeyahay yes inta aan yes dhan kor waa inaan marka hore administrator oo igu xukumay password inaan gashtaa passwordkaygu ah kadib marka waxaan leeyahay yes marka aan ku dhufto waxa ay soo baxayo command promote window oo ku qoran administrator command promote marka ay soo baxo kadib marka waxaan iska leeyahay minimize waxyaabaha xiga oo weydiin doono ayaan sameyn doonaa kadib marka oo soo baxo command promote window maxaana lagala baahan inaan sameeyno markii oo ku soo baxo waxaad qoraysaa type oo inaad qortaa net user username password /add marka net userhani markii aad account cusub markaad sameysan rabto net userhani waa in aad marka hore aad qortaa kadib aad raacisaa magacaaga passwordkaada iyo kadib aad raacisaa /add ama haddii kale soo maahan net user markii aad qorto username-kaada qoraysaa username-ka markii aad qorato kadib marka password-ku iska dhaafi kartaa
net user markaad qorto username ka oo ah magacaaga ha noqdo Cabdi Osman Ali hani mid koro ha noqdo password kan hadaa rabto waad ku qoran kartaa 1 2 3 4 waad dhihi kartaa ama password cusub aan gashan kartaa ama hadii kale Soomaan password kan waa iska dhaafi kartaa gabi ahaanba markii aad qorto net user username oo magacaad markaa qorato kadib marka waxa leedahay /add markaa dhado kadib marka waxa leedahay enter format tusaale ahaan meeshaan kugu tusaya net userhani username password /add waa ku sharxaadaya format waa in format tusaale ahaan where halka username halka uu yahay username ka is the name you wanted to use for the user waa halka magaca aad ku isticmaali lahayd qofka computerka isticmaalaya magaciisa ha noqdo Cabdi Osman anda etc username ka oo kaaga muuqata screen kani waa magaca qofka computerka isticmaalayo oo ku qoran laha weeyaan anda iyo password kan waa maxay asigana is the password you want to sign to the account password kan waxa weeyaan waa lambarka aad gashan lahayd accountiga hadhowda markaad rabto inaad furato oo kugu xukuma password gasho ama hadiiba Soomahan passwordka ma bagashanaysid waa iska dhaafi kartaa waxaad qoranaysaa oo kaliya net user space username oo magacaaga Abdicaziz kadib marka waxa leedahay space /add waa leedahay passwordka oo dhan waa iska dhaafaysaa ama hadii kale hadaad rabto passwordka waa aad raacin kartaa passwordka adigoo dhahayo net user space Cabdi space 1 2 3 4 space /add ayaad leedahay kadib marka waxa leedahay enter kadib marka wuxuu ku leeyahay successful. All right, let us go down. qaybta kale xiga wuxuu leeyahay for example tusaale ahaan to add marka rabto inaad ku darato a username magaca isticmaalaha qofka oo isticmaalaya computerka for example anigu hadda waxaan leeyahay Arman waa Arman waxaan ku qornay dhanka username ka with the password keegana waxaan ka dhigan doonaa 1 2 3 4 5 6 markii aad rabto inaad account cusub aad furato adigoo ku furanayo CMD username waxaad ka dhiganaysaa magacaaga password kana waxaad ka dhiganaysaa number ama magac waad ka dhigan kartaa you will enter markii aad geliso Arman iyo passwordka you will enter waxaad gelinaysaa net user markii aad ku qorto meeshaan Arman ayaad raacinaysaa space ayaad leedahay 1 2 3 4 oo passwordka space ayaad leedahay /add kadib marka waxa leedahay enter if you don't want to use a password hadii aanad rabin in aad accountiga ku isticmaalato password don't type ha ku qorin in a password just enter wax password ha ku qorin waa inaad dhahdaa oo kaliya enter sidee ayaad ugu boodaysaa password adigoo qoranayo net user space username space /add kadib marka waxa leedahay enter like the way you see here command prompt window-ga qaabka meeshan ku qoran C capital :windows/system that to greater than intaas marka uu ku ekiyahay waxaad qoranaysaa net space user space username oo magacaaga Abdicaziz space ayaad leedahay passwordka oo ah 1 2 3 4 or password aad rabto waad gashan kartaa meeshan space ayaad leedahay / ayaad qoranaysaa kadib marka waxa leedahay add marka dhada enter ayaad leedahay marka hadda intaan oo dhan noo soo sheegay aan sameeyna marka hadda waxaan tageynaa taskbar waxaan ka dooraynaa command prompt haddii aan soo furnaynay markii aan soo furno waxa ayuuna leeyahay hadda maxaan rabnaa inaan ku sameeyno marka waxaan rabnaa hadda command prompt anagoo ku soo kacsanay as administrator waa in aan ku furanaa new user account sidee ayaan ku furnaa marka sida hadda uu noo sheegayo oo kaliya waa inaan ku sameeynaa waxaan qoran marka waxaan aad sameynayso as small capital letters aad ku qoranaysaa magaca waad ka dhigin kartaa capital the first letter waxaad ka dhiganaysaa capital oo ah Arman marka uu yahay the first capital is A waxaad leedahay capital marka hadda aan bilowno marka net user net markaad qorto space ayaad leedahay user kadib marka waxa leedahay space marka dhado isticmaalaha accountiga oo isticmaalaya magaciisa username oo ah waxaan leenahay Arman markaan dhano waxaan leenahay space markaan dhano passwordka maxaan ka dhiganaynaa marka passwordkan waxaan leenahay 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 markaan gashano space ayaan leenahay space markaan dhano kadib marka waxaan leenahay / waa sida tan meeshan kaaga muuqato
kadib waxaa leedahay slash markaad dhahdo add ayaad ka daba qoraysaa adigoo san dhahan space hadda meeshan waxaa noo qoran net space user space aad leedahay username oo ah magaca armaan space aad leedahay password oo ah 123456 space aad leedahay markaad dhahdo slash add ayaad leedahay kadib marka waxaa leedahay enter marka aad dhahdo hadhowda marka wuxuu ku leeyahay enter marka aad dhahdo wuxuu ku leeyahay the command completed successfully hadda micnaheedu waxay tahay new user account-ga ayuu ku samaysan yahay marka aad rabto adigoo san u isticmaalin command prompt window adigoo close inta adigoo san u isticmaalin sidee ayaad uga bixi kartaa waxaad qoranaysaa exit markaad qorto waxa leedahay enter hadda command prompt-keena waa aan ka baxnay marka sidee ayaan ku ogaanaynaa in oo new user account-gaani in oo noo samaysmay iyo in kale anagoo san dhahan windows plus l ama windows kii anagoo san isticmaalin waa in aan tagnaa halkaani oo ah file explorer ayaa soo furanaysaa file explorer markaad soo furato waxa aad leedahay this pc hadduu oo windows 10 uu yahay computerkaada aad ku isticmaalayso waxa meeshan ku qoran this pc hadduu uu yahay windows 10 waxa ku qoran computer waxaas oo kale ku qoran kadib marka waxa leedahay this pc right click aad ku leedahay right click marka aad ku dhahdo this pc waxaad ka dooranaysaa manage-na waxa ka sareeya collapse waxa ku xig manage ayaad leedahay click markii aad dhahdo manage click hadhoodii waxa kugu xukumi doona administrator-ha aad ku kor isticmaalayso computerkaani asigoo ku dhahayo password geli ani password-ka aan gashan doonaa kadib marka waxa leedahay enter marka aad dhahdo hadhoodii waa ku soo kici doonaa manage cabar ay sugaysaa ilaa kaaga soo kaca waayo noo soo kacay computer manager marka noo soo kaco maxaan rabnaa hadda inaan ka ogaano halkaan waxaan rabnaa oo kaliya in aan ka ogaano in oo accountiga cusub aan hadda ku soo sameysanaynay command prompt iyo haddii in oo noo sameysmay ama in oo noo sameysmin marka sidee ayaan ku kala ogaanayna markii oo meeshan ku keeno waxa leedahay kan maximize la iska leedahay marka waxaad ka dooranaysaa local users and group ayaad ka dooranaysaa markii aad ka doorato waxa ku soo bixi doono users and group waxaad ka dooranaysaa users marka aad doorato meeshan waxa ku jiraan account-yada dhan oo kugu furan computerka anaga waxa aan iska isticmaalanayo oo kaliya administrator armaan default account dr abdulaziz jibril abubakar guest warsame hadda waxa iga disable iga administrator iyo guest iyo default account disable iga qaabkaane loo dhahana disable iyo enable waan baran doonaa hadda marka waxaan ogaanayaa in oo account-ga armaan aan ku soo sameysnay in uu soo furmay in kale hadda waa ii soo furmay waa kan account-ga cusub oo aniga hadda soo sameystay account-ga cusub soo sameystay waa all right kadib marka aan kalaawno waxaan iska leenahay minimize kana file explorer minimize aad kale cashirkana dib ugu soo laabanayna okay press enter waa inaad rixdaa enter doing so runs adigoo ku kacsanayo the command and begins creating the user account once you say the phrase the command completed successfully waa sida hadaya oo noo dhahayay the command completed successfully markii aan dhahnay press enter kadib marka wuxuu yiray the command completed successfully appear your user has been added macnaheedu taas waxay la mid tahay account-ga cusub waa ayuu ku sameysmay okay account hadda waan sameysnay hadda waxaan rabnaa in aan kala saarno administrator iyo user marka sidee ayaad ku ogaan kartaa account-ga waqti xaadirkan aad isticmaalayso in uu yahay administrator ama in uu yahay user marka aad rabto hadda tusaale ahaan account cusub ayaan sameysnay account-gaasna waxa ku qoran armaan marka account-gaasi armaan in uu noo yahay administrator ama in uu noo yahay user sidee ayaan ku kala ogaan karnaa waa anagoo tagay meesha hadaya oo ah this pc right click markaan leeyahay manage ayaan ku dhufanayna kadib marka wuxuu ay toosno gelinaya computer manager hadda marka aan kala ogaano account-yada noo ah administrators iyo account-yada noo ah users minimize iska dhac shirkan waxaan taganaa computer manager hadda anagoo meeshan joogno marka waxaan rabnaa administrator-hani armaan default account dr.abdulaziz jibril abubakar guest and warsame intaani account-ga
waxaan rabnaa inaan kala ogaano intoodba midkoodba inuu yahay administrator iyo midka kale inuu yahay user. inta oo accountiyada oo dhan user ah, accountiyadaasi waxaa wada xukuma administrator. account walba oo ku kor isticmaalayso computerkaada oo ah administrator asiga ayaa ku xukum. marka hadda aan kala ogaano accountiyada oo ah users iyo accountiyada ah administrators. waxa ayaan ka bilaabaya administrator ayaan right click leeyahay. markii aan right click waxaan ka dooranayaa properties markaan ku dhufto waxaan soo baxaya administrator properties. kadib marka meeshan general ay ku qoran member of iyo profile. marka administratorhani member of intuu ka tirsan yahay member of ay ku dhufanaysaa. administrator waxa uu ka tirsan yahay administrator. hadhoodi haddii aad lacag warsamo aan dhahay disable aan kan dhaho enable, hadhoodi marka aan rabo inaan user accountiga anigoo isticmaalanayo waxyaabo kale, marka tusaale ahaan anigoo soo galaya computer manager hadhoodi wuxuu leeyahay administratorhani waa inaad furtaa password waa inaad ku furtaa. kadib marka si waa ku xukumaa. okay, sida ay tahay hadda kan administrator waxaan hadda kala xaqiijinay inuu noo yahay administrator. kadib marka armaan aan ogaani asigana meesha uu ka tirsan yahay. waxaan leenahay right click kadib marka waxaa ku dhufanaysaa properties. markii aad ku dhufato waxa inoo soo bixinayo armaan properties. hantida ku saabsan ama properties wax walba oo ku saabsan armaan meesha ayaad ka kala ogaanaysaa. hadda general armaan iyo member of. marka armaankani wuxuu ka tirsan yahay users. armaanna waxaa xukumo administrator oo ah warsame or administrator. accountiga xiga iyo noqon doona waxaan leenahay right click kadib right click markaan dhaano properties ayaad ku dhufanaysaa. marka aad ku dhufato member of ayaad tagaysaa. markaad tagto system managed accounts group kan wuxuu ka tirsan yahay group kan waxaa iska leedahay cancel. okay, dr.adxis iyo oo ka tirsan yahay asigan right click ayaad leedahay properties ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufato member of iyo ka tirsan yahay user. accountiga hadda aniga isticmaalayo user iyo ka tirsan yahay. waxaan xukuma administrator or warsame. accountiga xiga gastiga ah iyo ka tirsan yahay asigana properties markaad ku dhufato member of ayaad leedahay waxay ka tirsan yahay gast leh asigana waayo badana waa lagu keenaa computer. warsame asigana iyo ka tirsan yahay accountigan waxaan leenahay properties member of administrator. sida aan filayo hadda waa aad kala fahamtay administratorha waxa accountiyada ah iyo armaan iyo userska accountiyada ah. marka waxaan rabaa in aan kala xaqiijiyo administratorha wuxuu xukumo iyo userska waxyaabo ay xukumaan. tusaale ahaan kan cancel iska dhaano kadib marka waxaan tageynaa groups markaan tagno meesha waxaa noo qoran users iyo administrator. marka administrator ayaan right click leeyahay. markaan dhaho properties markaan ku dhufto meesha ayaan ka descriptions waayo description wuxuu ku kala xaqiijinaa administratorni waxyaabo qabto. administrators have completed under unrestricted access to the computer domain. waayo administratorni wuxuu si dhammaystiran oo inta badan oo xaniba user accountiyada aad ku kor isticmaalayso computerkani ayo inta badan ka hortaga waxyaabaha si qaldan loo isticmaalayo. waa user accountigani inta badan administrator xukumo. hadduu administrator password ku leeyahay user accountiga oo cusub aad samaysatay hadhowdi waxaa xukumi doono administratorha. waayo user accountigani markaad rabto inaad meel walba aad ka tagto adigoo isticmaalaya user account waxa hadhow ku xukumi doono administrator. meel walba aad ka kaleeyso computerkani waxa ay hadhow ku xukumi doono administrator adigoo ka gelinayo administrator password. hadda administrator waxaan kala xaqiijinay in inta badan ka hortaga asigoo si dhammaystiran computerka waxyaabaha oo lagu kor isticmaalaya user accountiyada. okay, usersna inta badan muxuu qabtaa asigan right click ay leedahay properties ay ku dhufanaysaa. marka aad ku dhufato kadib marka description meeshan asigana aan ogaana users are prevented. usersyada waxa inta badan ka hortagaan from making accidental or intentional system-wide changes and can run most. users inta badan accountiyada users ku ah oo dhan waxa inta badan ka hortagaan waxyaabaha si shil ahaan oo kale adigoo ku sameysanayo user accountiga. administrator inta badan si dhammaystiran wuxuu ka hortagaa user accountiyada waxyaabaha si qaab daran adigoo ku kor isticmaalana ama waxyaabo aad deletes. waayo hadduu computerkada administrator uu ku leeyahay waa ayuu ku badbaaday. meelaha badanaa driverha iyo meelaha laga tagayo dhan iyo datada dhan oo computerka oo ku jiraan ayuu badanaa ku badbaadinaya. aan kala wano marka cashirkan hadda meeshan cashirkan dib aan ugu laawno minimize iska cashirkan aan soo kacsano. okay, 4 or I mean 6 grant the user administrator permissions. If you want
to turn the user account into administrator account. haddii aad rabto user accountiga hadda tusaale aan soo sameynay armaan waxaan soo xaqiijiyay accountiga hadda aan soo sameysana armaan aan ku soo sameysanayo command barmod waxaan hadda soo xaqiijiyay in uu yahay user accountiga hadda aan soo sameysana oo aan ku qornay armaan waxa ayuu ka tirsan yahay user marka sida ay tahay haddii aad rabto in aad ku kala bedeshato user accountiga into administrator account sidee ayaad ku bedeli kartaa hadduu oo accountigaada uu yahay user oo aad ku bedelan kartaa administrator markaad rabto user account in aad ku bedelato administrator account waa in aad qortaa net local group administrators markii aad qorto net local group administrators markaad qorto waxaad raacinaysaa accountiga magaciisa oo ah armaan aniga hadda accountiga daas usmeysna armaan ayaa u qoran waxaan soo xaqiijiyay inuu yahay user ayuu ka tirsan markii aan geliyo armaan meeshaan kadib markaan waxaan leeyahay /add into common baron anigoo ku kala bedelayo user accountiyada anigoo ku bedelayo into administrator accounts through in common baron making sure markaad xaqiijinayso to replace waa inaad xaqiijisaa kala bedelitaanka aad kala bedelayso username with the name of the account username kan muxuu yahay horta asiga username kan lagu sheegay wax weeyaan with the name waa magaca of the account oo accountiga you want to change aad rabto inaad bedesho and press enter waa inaad riixdaa enter for example to make tusaale ahaan markaad rabto inaad ku sameyso user accountiga named magaciisa armaan magaciisa oo armaan hadda accountiga aan soo sameysanayo waxaan u baxsaday armaan an administrator armaan an administrator waa inaan hadda ka dhigo hadda user accountigan oo ah armaan waxaan rabaa inaan aniga hadda ku bedeshto as administrator account you will type waa inaad qortaa in net space local group space administrators armaan markii aad qorto space ay leedahay slash aad qornaysaa add markii aad qorto and press enter aad leexaysaa sida tan had meeshan kaaga muuqato markii aan ku soo kacsay common barmar as administrator meeshan uu kanay kadib marka account walba aan ku isticmaalanayo in my computer accountiyada soo ah users markaan rabo in aan ku bedeshto as administrator accounts waa in aan tagaa common barmod marka hadda midkee aan rabaa in aan ku sameysto as administrator marka hore accountiyada aan soo kala ogaado magacyahooda iyo qaabka ay u samaysan yihiin waxa leedahay computer manager oo meesha computerka dhan oo laga xukumo weeyaan systemka oo dhan meelaha ka helayso weeyaan users aad ku dhufanaysaa hadda armaan qaabkan ayuu ugu qoran armaan ayaan rabaa hadda inaan aniga oo ka dhigo hadda armaan wuxuu ka tirsan yahay users waxaan rabaa marka hadda inaan ka dhigo administrator sidee marka aan uga dhigi karaa hadda marka waxaan leeyahay close kale midkan kana close kale common barmod ayaan soo kaxsanay hadda markaan soo kaxsado common barmod right click ayaan leeyahay run as administrator markaan ku soo kaxsado mahadi okay meesha marka ono keeno waa inaan marka aan gashanaa net user net space local group space administrators space armaan space /add waa inaad qortaa net space aad leedahay local group waa isdawracinaysaa labadaba space aad leedahay administrators markaad qorto space aad leedahay aniga hadda accountiga oo ah user armaan waxaan rabaa inaan ka dhigto administrator account waa inaan qortaa armaan marka aan qorto waxaan leedahay space markaan dhahdo waxaan leedahay slash aad ayaad raacinaysaa hadda marka kadib marka waxaan leedahay press enter markaad dhahdo armaan user account armaan hadhowda wuxuu isku bedeli doonaa as administrator account enter ayaad leedahay hadhowdan wuxuu ku dhihi doonaa the command completed successfully hadduu oo sidan kuu soo saarin waxyaabo fara badan su'aalooyin oo ku saabsan ayaa jirta waa idin sheegi doonaa markii oo sidan ku soo baxay exit ay iska leedahay marka exit ay leedahay iska bixisa midkaani waad iska xiraysaa minimize iska leh ama file explorer ayaan teginaa waxaan rabaa inaan kala ogaano user accountiga hadda oo armaan oo noo ahaa ebilka hore
in aani hadda aan oo ka dhiganay as administrator account waxaan rabaa inaan kala ogaado in uu yahay hadda user account-iga oo Armaan as administrator account waxaan leeyahay this VC aad leedahay right click markaad aad manage aad ku dhufanaysaa manage markaad ku dhufato warsamayaan ka dooranayaa mahda aan leeyahay inta هذا أرمان user account تيجا أو قبل كرو هذا وحنا أنك نكتي as administrator account عبارة عن سجنا إلا أنه وصلك على computer manager وأيون وصلك على هذا كده منك وحلا هذا local users and groups users أيتكدر نسا أرمان أيت right click لهذا هاي وبربط أيتكون في نسا member of وحكتر سنة هاي users وحكتر سنة أرمان وحكتر سنة هذا ده مركا كان هذا رتوحة لهذا remove فأت ليه كرتا أو أتصرف أو كلية administrator هذا مركا رتوه إن أت administrator أت كقاد أرمان سيدا أيت أو خالصة administrator نفس الكيسة select أيت لهذا مركا select ده كده منك وحلا هذا remove مركا ده apply أيت لهذا هاي كده بين أوكي لهذا هذا أرمان وح أيان كسوبة دشناي as user account واسيد تمشان كاغا مخاطب أما ديك السمان هدو دي مركات أديك as administrator مركات كاريجا تو أرمان account users select اللي ده كده مركو حالة remove وح مشان أوكلي كوكسو هاري دونو administrator أوكلي واسيد قاب كان أوكلي ويان كل سكرة متكان كان كل سكرة عشان كان دبي يوصل الله question is about the computer سؤالين كسبسم كمبيوتر كا question number 1 وحويان how do I open a laptop password تصالي أهان user account is administrator account سماشان يوجو جيران كمبيوتر كان هذا أنا استعمالنا account يفر بدن أن كوكر استعمالنا يا account متكمد أو أن كوكر استعمالنا كمبيوتر كاني أيا password كيس أن إلوبي مركا account جالس أن password كيس إلوبي سيدا أيان هدو دي أن كله كرا password markaan rabo inaan jibiyo sida aan password ugu jibin kara account-yada markaad rabto account-iga hadii aad lacala aad kiiloodo password-ka account kale laba account aad isku isticmaalayso computer-kaaga tusaale ahaan laba account ayaa computer-kaaga isticmaalaysaa mid kamid ah ayaad password-kiis ilooday marka inta aad dhileedi lahayd password account-igaasi qaab fudud oo inta badan password-ka lagu jibiyo ayaa jirto sida tan hadda aan iga sheegin doono kadib marka how do I open a laptop password? The answer is access that account to receive your password. Boot your computer and press F8 repeatedly. Access safe mode. Key in administrator in username with no password. Go to control panel. Markii aad rabto in aad account-iga oo password-kiisa aad ilowday inaad rabto inaad ka jibiso waa inaad aadaa control panel then user account is select the account you want to receive the password change the password waa sida uu kaliya qaabka loo sameeyo hadda marka aan sameeyna marka qaabka hadda waa inaan tagnaa control panel korkaas aan soo qoray click ayaad leedahay click markaad dhahdo oo ay ku soo bixin marka uu ku soo baxo waxaad ka dooranaysaa user account markaad ka doorato waxaad leedahay users markaad ka doorato kadib marka waxaad leedahay user account change type meesha marka uu ku keeno hadda dr.abdixsiis jibriil abukar iyo armaan oo badan meeshan ku jiraan marka armaan raba tusaale ahaan password-kiis waan iloobay inaan dhaho receive password-kii hore aan ku xirtay waan iloobay tusaale ahaan waxaan rabaa marka inaan password-kani aan ka jibiyo aan password kale cusub ku sameeyo ama sidee marka aan uga sameeysan karaa change the password aad ku dhufanaysaa change the password markaad ku dhufato meesha ay ku keenaya new password confirm new password type a password hint tusaale ahaan haday 1 2 3 4 5 6 ayuu ahaa waan iloobay password-kaasi hadda marka password cusub ayaan u sameysanayaa marka oo ah 2 2 3 3 4 4 5 5 confirm new password isla password-kii haday aad gelisay ku celi 2 2 3 3 4 4 5 5 markaad geliso type password hint maxaa laga wadaa password-ka aad gashatay inta u dambayso ayaad ku qoranaysaa meeshan
55 hadduu password kuugu dambeeyo 55 ayaad leedahay waayo lacala hadhow markaad password ka ilowdo 55 kaasi ayaa hadhow kusoo xasuusanaysaa kadib marka waxaad ku dhufanaysaa change password sidoo kale qaab kale fudud oo badanaa oo lagu dhahdo accountiga dalcada password ka ilowdo ayaa jirto oo reset password qaab kale fudud lagu samaysan karaa jirto haddii aad ilowday accountiga passwordkaada qaab kale fudud oo aad ku jabin kartaa ayaa jirta passwordka sidee aadna ku tagi kartaa anagoo tagayno manage computer management kan close iska naano kadib marka waxa leedahay change password marka dhado hadhow password maanta kala isbedelay close midkan cancel iska leedahay kan close iska leedahay okay wili waxaan ku jirnaa how do I open a laptop password qaybta kale xiga oo aad passwordka hadii lacagta accountiga aad ka ilowday sidee aad ugu jabin kartaa ama aad ku dhigi kartaa reset password waxaad tagaysaa file explorer marka aad aado this pc aad ku dhufanaysaa right click aad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato manage aad ku dhufanaysaa manage markaad ku dhufato administrator wuxuu ku xukumayaa password geli enter markaad dhahdo hadhow marka meesha ayaanu keeni doonaa computer manager ayaanu keeni doonaa markaas ayaan inta badan aan ka dhigi karnaa reset password habar ay sugasay ilaa oo kaaga soo kacayo computer manager hadda marka noo soo kacay computer manager intee ayaan aadina waxaan aadinaa local users and groups ayaad aadaysaa markaad aado users ayaad ku dhufaysaa double click kadib marka armaan ayaan rabaa hadda inaan reset password inaan dhaho right click ayaan leeyahay set password ayaan leeyahay set password hadaa dhahdo armaan passwordka oo ku xirnaa aad ilowday asiga dhan gabi ahaan buu ka baxaya set password marka dhahdo meeshan wuxuu ku leeyahay su'aalooyin fara badan akhriso kadib waa aad ogaan doontaa kadib marka waxa leedahay proceed hor u sii socod leedahay aniga hadda hadii aan rabin accountigan aan password ka iloobay hadda wuxuu leeyahay password cusub gasho ma aan rabo inaan aniga hadda password cusub inaan gashto kadib marka waxaan leeyahay okay markaan ku dhufto kadib marka waxaan leeyahay okay the password has been set okay aad leedahay kadib marka waxaan leedahay close aad iska xiraysaa hadhow marka accountigaasi oo passwordka aad ku samaysatay automatically hadhowdi ayuu ka baxayaa hadhowdi marka user accountigaasi gabi ahaanba passwordkiisa marka uu ka baxo caadi waa u isticmaalan kartaa aan ka baxno qaybta labaad meesha aan ku samaysan kartaa waa meeshan question number 2 when I type username and password it says access is denied markii aan qoro username and password it says wuxuu dhahayaa access is denied sababta uu ku leeyahay waa maxay waxa waayo common barmoodkaadi kuma soo kacsanin as administrator you have to run marka uu ku dhaho lacala computerka markii aad rabto inaad new user account markaa rabto inaad ku isticmaalato as common barmood adigoo ku isticmaalnayo when I type username and password it says access is denied what should I do maxaa sameeyaa marka you have to run common barmood as an administrator waa in aad marka hore common barmoodka aad ku soo kacsataa as administrator right click markaad administrator marka aad ka soo kacsanayso waa inaad dhahdaa right click on the common barmood markaad dhahdo the icon and the click run as administrator hadhowda marka kuma diidi doono aniga tusaalaan waa aan ku tusayaa asiga gabi ahaanbo waa aan qaldaya tusaalaan sidoo ay dhahay marka ayaan iga tusaa markaad hadda common barmood kuma soo kacsano as administrator waxaan oo kaliya leeyahay click markaan dhaho hadhowda marka qaabkan ugu soo baxaya markii aan geliyo net user abdi markii aan geliyo passwordkeedu ah 12345 markii aan geliyo 6 space ayaan leeyahay slash and layer add markaan dhaho enter markaan dhaho muxuu ilaa meeshan system error 5 has occurred access is denied sababta oo sida uu ku leeyahay waa maxay waayo sharciga oo aniga hadda aan ku soo barayay ma aadan raacin markii aad rabto common barmood in aad ku furato new user account waa in aad marka hore aad ku soo kacsataa as administrator question number 3 why am I seeing a message that says my local group isn't there if I am being stopped at the point of entering the command line or the command barmood into the second stage of the process markii oo sidan oo ku dhaho check with which language you are using while command barmoodka it has a specific language common barmoodku waxa ayuu leeyahay luqad oo u gaar ah haddii oo luqadaasi oo ku sarneen waa in aad marka hore ka soo saxtaa intee ayaad ka soo saxnaysaa
language-ka. The local group is probably a bit different. Waa aan arki doonaa cashirkan marka. cashirkan maanta inta ayuu ku ogyahay. Marka qaaweyn kale ay jirto oo lagu samaysan karo another new user accounts. Hadda qaybta koowaad waxaan ka barnay common format. qaybta xigana inta aad ka samaysan kartaa adigoo tagayo file explorer. File explorer marka aad aado this PC ayaad right click leedahay. Right click marka aad aado manage ayaad ku dhufanaysaa isla meesha hadda aan ku laabanina. Internet leedahay website-ka marka gashato. waxay ku soo kici doona computer manager. Computer manager marka ay ku soo kaco meeshaas ayaad ka samaysan kartaa another new user account. عبارة سوق سيلا كاكسوكا هذا هو أيون سوكا command manager computer manager مركي أدرتو another user account مركي أدرت ناقص مسات computer كذا وإن أتكتا local users and groups مركي أتكتو users أيت كدورنيسا مركي أتكدورتو مش يعني أكو قرن more action أيت لهذا هاي click مركي أتكلو فتو مش يعني حكوصة بحدانه drop down menu مركي أكوصة بحه وحيا كوصة بحه new user account view refresh export list and help marka waxaad ka dooranaysaa new user markaad ka doorato meeshan waxaad ku qoranaysaa magaca oo user account-ga aad ku isticmaaleed oo ah Abdi Aziz markaad dhahdo full name-ka oo magaciisa dhameystiran markaad inaad qorto Abdi Aziz markaad dhahdo Jibril aad raacinaysaa Jibril markaad raaciso description ay ku leeyahay meeshan iska dhafaysaa kadib marka password marata inaad gashato ha layer 1 2 3 4 inta waxaan leeyahay 1 2 3 4 marka meeshan waxa ku qoran user must change the password at the next logon. User cannot change password never expire. inta waxa ku qoran account is disabled. hadda meeshan waxa noo qoran administrator hani flartani meeshan saaran maxay macnaheedu u mid tahay waayo flartani hoose oo u taalo macnaheedu waxay tahay administrator hani is disabled waayo disabled ayaa lahayd marka aan rabo account-yada badana oo disable iga ah meesha ayaan ka imanaya enable ayaan ka dooranaya marka hadda aan sameysano marka account-ga kan grade marka dhahdo account-iga waa ay ku sameysmay waa ka soo mujeed Abdi Aziz full name-ka oo ah Abdi Aziz Jibril Okar account-iga san ayaad ku sameystay disabled iyo enabled aan idin kala saaro hadda tusaale ahaan Abdi Aziz-ka marka aan sameysto account-igani waxaan leeyahay disable iga dheh waxaan leeyahay properties disable account disable ayaan leeyahay apply and dooranaya kadib okay ayaan leeyahay account is disabled hadhoodi igama soo bixi doono Windows screen Windows logo screen igama soo bixi doono tusaale aan waayo macnaheedu waxay la mid tahay account-igani gabi ahaanba ma la isticmaalayo markaad rabto inaad enable dhahdo isla asiga naftirkiisa aad leedahay right click properties ayaad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato tigta ayaad ka qadaysaa kadib hadda macnaheedu waxay la mid tahay account is enabled apply aad leedahay kadib okay account-iga waad isticmaali kartaa account-yadan kalena meeshan oo ah disable waa aan ka dhigi karaa enable qaybta kale oo aad ku samaysan karto another new user account intee aad ka samaysan kartaa anagoo tagayno control panel search aad leedahay control ayaad raadinaysaa control panel markaad ka qorto waxaad leedahay click markaad dhahdo meeshan ay ku keenaya users aad ku dhufanaysaa user markaad ku dhufato users markaad ku sii celinaysaa marlaad markaad ku celiso meesha ayuu keenaya markaan dhahno kadib waxaan leenahay manage another account kale cusub noo samee markaad ku dhufato administrator waxa uu ku xukumayaa password gasho internet leedahay kadib marka waxaan leeyahay add a user account waayo meeshan afar account ayaa meeshan ugu jiro mid hadda ayaan ku soo sameystay computer manager midna waxaan ku soo sameystay oo armaan ah command format midka afraadna waxa midka saddexaadna waxaan ku sameysanayaa control panel oo ah add a user account markaan ku dhufto inta ayuu keenaya waxaan gashanayaa account cusub samaad waan sameysana waxaan leeyahay hani markaan dhaho password ayaan gashanayaa meeshan oo ah 1 2 3 4 5 ku celi ayuu leeyahay re-enter password 1 2 3 4 5 markaan gashto hint password waxa u dambeyn doona password-kayga 4 5 ay u dambeyn doona kadib marka waxaan leeyahay next markaan dhaho account-gayga waa ii sameysnay finish ayaan leeyahay marka soo muujid meeshan waxay ugu jiraan 5 accounts oo aniga hadda soo sameystay laba hore ay ugu sameysnay saddexna hadda ayaan soo sameystay Dear Abdi Aziz Arman Warsame Abdi Aziz Jibril Okar hani kadib marka waxaa iska leedahay close markaad dhahdo aan kula wana marka cashirkeen our next lesson cashirkeen xiga will be waxa ayuu noqon doonaa how to open sida loo furo local group policy editor in Windows 10
waayo hadda markii oo lacala aad la kulanto su'aashani saddexaad oo dhahayso why am I seeing at a message that says my local group isn't there if I am being stopped at the point of entering the command line into the second stage of the process or of this process. cashirkan ayuu ku salaysnaan doonaa su'aashani saddexaad. And all of you, I wish you all the best. Have a nice day and enjoy your lesson. Also enjoy your time. And don't forget to follow my channel anytime. If you have a new information or a new question about this lesson, you can comment. And don't forget, if you are new to me, subscribe and like and share to your friends or your brothers. Always share to my videos to other people in order to get more views and more subscribers, also more likes. I love you, all of you. I wish you all the best. Have a nice day and enjoy your time. Goodbye, guys.